subax wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii subaxnimo ee ficil iyo faaqidaada halka aad kala socotaan waa Raadsan TV waa subaxnimo isniina 6 Diseembar 2021 xogaha aan ka helayno magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa la sheegayaa in agaasimo ku-xigeenkii ciidamada BSF gaashaanle sare Cabdiraxmaan Ilig oo toddobaadkii hore afhayeen u ahaa ciidamada BSF uu ku soo biiray garabka madaxtooyada uu hogaaminayo madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdilaahi Deni. shacabka Puntland wuxuu ogsoon yahay ciidanka BSF inay ahaayeen kuwii muddada faraha badan ee xilliga dheer ka difaacayay dalka cadawgaas oo ahaa argagixisada al-shabaab iyo daacish ee degan buuraleyda Calmadow iyo Calmiskaad. sidaas darteed uma dulqaadan karna anagu in ciidamada ku soo caburiyo anagoo ah halgamayaashii dalka difaaciyay oo u dagaalamayay inta taliyaha ciidanku xilwareejintu sheegay inuu u yimid halka kaniisada iyo wasiirka amniguna waa mid sharciga baalmarsan ciidanka BSF hore u qaadaceen. sidoo kale toddobaadkii tagay ahayd markii ay ciidamada BSF xarunteeda ku soo bandhigtay ciidamo ka soo goostay garabka madaxtooyada oo ku soo biiray ciidamada BSF iyadoona ay sheegeen qaar ka mid ah ciidamadii soo goostay oo warbaahinta la hadlay in lagu khasbay inay la dagaalamaan ciidamada BSF arintaas darteedna ay uga yimaadeen garabka uu hogaaminayo madaxweynaha dawladda Puntland iyo agaasimaha cusub uu dhawaan u magacaabay ciidamada BSF. waxaan soo galnay xerada BSF xorriyadeeda aan ku soo galnay iyadoo nala ku yiri waxaad weeraraysaa in ciidanka BSF Puntland sida markay xaaladu nagu noqotay waxaanu dooranay inaanu ka soo baxno difaaca oo xorriyadeeda ku nimaano ciidankayaga BSF Puntland waxaanu 86 nin oo ka tirsan ururka Gallayr. haddaba magaalada Boosaaso oo ka mid ah magaalooyinka loo qorsheeyay ka qabsoonto doorashada golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya oo iyana haatan waqtigeedii taagan yahay. haddaba saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa khilaafka haatan ka taagan magaalada Boosaaso mase laga yaabaa in laga wareejiyo doorashadii lagu qaban lahaa magaalada Boosaaso oo ma loo weecin karaa magaalo ka mid ah magaalooyinka Puntland. dhammaan su'aalahaas waxaan uga tegaynaa shacabka iyagana ka soo jawaabi doona aan ku sii guddiga doorashooyinka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa celiyay oo waxba kama jiraan ku tilmaamay qaar ka mid ah kuraas lagu qabtay magaalada Muqdisho, Baydhabo iyo Dhuusamareeb oo ay kala leeyihiin maamulada Somaliland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. haddaba kuraasta doorashadooda dib loogu noqonayo waxaa ka mid ah kursiga sumadiisu tahay Hob 154 oo Baydhabo ah iyo kursiga ay sumadiisu tahay Hob 103 iyo kuraas kale oo ay sheegeen guddigu inay weli soo socdaan ee aanay ka soo bixin weli aanay ka soo dhamaan gacanta guddiga doorashooyinka maamul goboleedada. sidoo kale qaar ka mid ah kuraasta Somaliland ayaa waxa ka taagan cabashooyin iyadoona habraaca doorashooyinka dalka ay Somaliland kaga duwan tahay gooyinka codeynaya oo ay wadaagaan dhammaan kuraasta Somaliland. hal ergo kaliya ayaa soo saaraysa dhammaan musharaxiinta u tartamaya kuraasta maadaama lagu qabanayo magaalada Muqdisho oo aysan ka dhacayn doorashadoodu qaybo ka mid ah Soomaaliland. sida awgeed ayaana loogu ogolaaday ergada inay wada doorato dhammaan musharaxiinta metelaya Somaliland. haatan aynu siyaasadda uga diga rogano dhankaas iyo arrimaha bulshada. waxaynu dul istaagaynaa gobolada ay ka jirto abaarta aadka u ba'an ee loogu magac daray abaarta Tiinley. waa dhalinyaro ku sugan jiida hore ee gobolada ay ka jirto abaartu waxay halka kan u joogaan si ay gurmad ugu fidiyaan dadkii ay caydhaysay abaartii Tiinley. waxa ay soo duubaan oo badana baraha bulshada ku soo faafiyaan muuqaalo kugu abuuraya dareen gooniya oo murugo leh.
bal haddaba qaar ka mida muuqaalada tan oo ah dad waayeel ah oo aad u tabaalaysan oo aan saddexda waqti hal waqti na aan helin wax cunto ah bal ila daawo muuqaalka kan waa kan maxaa ku cashaysay koob shaah oo madow baa lii keenay arbanta dhanwaa madow qura tafool ilaahay waa ogeysan saa intaa ugu keenay waa baryo salaada tukan been haddaan sheego allah baa iga sarreeyo ilaaha kaa sareeyo ilaahan kugu dhaariyey xalay adiga maxaa ku cashaysay hooyadaana maxay ku cashaysay ilaahan kugu dhaariyey hooyo ilaahan kugu dhaariyey koob shaah maa ku seexatay xalay ilaahay baa igu dhaa oo rasuulka igu og salaada tusbaxay uga kacay koobka ka baday inaan damayo haddana nafta qaado haddaba waa tahay haddaynu intaa kaga soo noqonno maxay tahay aniga iyo adigaagan daawanaya muuqaalka kan waxaa nagala gudboon dadkaas aynu halkaas ku aragno waxa ay u baahan yihiin waa gurmad degdeg ah in loo fidiyo qof walba sidaa u jeedaan xagga ugu dambaysa dhalinyarada tan waxay ku soo qorayaan lambarada lagu caawin karo ama wax loogu qaban karo ama wax loogu diri karo cid walba ciddii rabta inay ka qayb qaadato hor ilaahayna uga qayb qaadato dhammaan lambaradaas waa la xidhiidhi kartaa waxna waa ugu diri kartaa wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka warqabayso reerkii allaha u naxariis Cabdicasiis Afrika oo 20 November 2021 qarax lagula beegsaday magaalada Muqdisho haddaba waa kan wasiirka warfaafinta Senator Cismaan Abubakar Dube oo warbaahinta la wadaagay inaynu la murugoono oo u ducayno walaalkeen Cabdicasiis Maxamuud Afrika Cabdicasiis Maxamuud Guuleed wuxuu ahaa nooc runtii dadkeena ku yar waana sababta ilaa hadda dadku murugadiisa iyo tacsidiisa wadaan ilaahay ha u naxariisto اللهم ارحمه وعافه ووسع مدخله وبدل دار الخير من داره وأهل الخير من أهله إلهي هو نحرسته إلهي جنة فردوسه هجيو وحوها رنتي قف أيرتها إنات هشو هديتها جيسنمو هديتها عود كرنمو هديتها صومالنمو هديتها مسلمنمو يدين قف كدين شعل وكم ساعة شعل ولا جاي معرق رجنمدا يو أقونته يو جراتك كشري dhinac alla dhinacaad u qaado ilaa intuu ila shaqaynayay 12 bilood ila shaqaynayay runtii meel gaar ay ugu qoran tahay geeridiisuna aniga waxay ugu ahayd darbi dumay oo dhinacayga ka dumay ilaahay u naxariisto qoyskiisina Samiriyeyman ka siiyo qaranka Soomaaliyeedna Samiriyeyman ka siiyo bahda saxaafadana Samiriyeyman ka siiyo wasaaradda warfaafinta oo uu tir dhaxaad u ahaana Samiriyeyman ka siiyo intiina ka soo qayb gashay xuskan iyo tacsiidinana waa idinka mahad celinaya saa soo ajiibteen salaadaynu tukanaynaa waxa maanta ugu weyn inuu sameyn karnaa waa duco waxaanu kala ballan qaadaynaa ubadkiisii iyo waalidkiisii inuu sidii ugu shaqaynayay si la mid ah inaanu ugu sii shaqayno u kafaalo qaadno uga warhayno taasina wasaarad ahaan iyo mas'uuliyad ahaan annagayna taala waa tahay daawadayaal intaas ayaynu ku gabeenaynaa barnaamijkeennii subaxnimo oo aad kala socoteen telefishinka raadsan idiina soo jeedinayay anigoo ficil burku